كسريو أما كم مقع ديري أي إلهي كدوي كامل fanaanka caanka ah Maxamed Siciid Biike oo dhawaan muuqaal soo galiyay baraha bulshada ayaa sheegay in qof walba qofka uu ka magac weyn yahay isla markaana uu ka sareeyo oo alla uga dhow yahay arintaas ayaa aad u qabsatay baraha bulshada waxaana dadyowgii kala duwanaa ee fikrada kala duwan ka dhiibtay ay badankoodu sheegeen in hadalkaasi yahay mid gafa isla markaana uu fanaanku u gafay shareecada diinta islaamka haddaba arintaasi iyo waxa ay diinta islaamku ka qabto waxaan wax ka weydiiyay Sheekh Cabdiraxmaan Dheere oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland waxaan uu tilmaamay inuu hadalkaasi ahaa mid gafa hadalka sharciyan hadaynu ku eegno Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoogu sheegay Qur'aankiisa Kariimka ah asbaabta ama arrimaha agtiisa lagu karaamada yeesho ama Ilaahay loogu kala dhow yahay Ilaahay wuxuu inoogu sheegay inay tahay alla ka cabsiga iyo toosnaanta lagu toosnaado awaamirta Ilaahay iyo awaamirta Nabiga sallallahu alayhi wasallam Allah Qur'aankiisa wuxuu ku yiri inna akramakum indallahi atqaakum Ilaahay agtiisa waxa idinku sharaf iyo maamuus badan oo idinku karaamo badan kuwa idinku alla ka cabsiga badan buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah ma oran kuwa idinku magac dheer leh kuwa idinku caansan Ilaahay ma oran wuxuu Ilaahay noo sheegay sida loo kala alla ka cabsi badan yahay Ilaahay loogu kala dhow yahay subhanahu wa ta'ala waxa kale nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam Ilaahay ciddu jecel yahay inaanay marar badan ba inaanay noqon xataa dad la yaqaano nabigu wuxuu yiri inna allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-khafi Ilaahay wuxuu jecel yahay buu nabigu yiri adoonka Ilaahay ka baqa ee iska qarsoon dadku waxa taadee doonayay aqoonaanin yaanu caan ahaanin yaa la garanin laakiin Ilaahay ka baqanaya iskana qarsoon oo cid baanay garanin buu Ilaahay ugu jecel yahay subhanahu wa ta'ala adoonka waa jecel yahay marka yaana waxa weeye caannimada iyo qofku inuu soo aanbaxo ama magac yeesho ama bulshada ay markaa wada barataa uma aha base iyo sabab iyo saldhig uma aha inuu Ilaahay jecel yahay subhanahu wa ta'ala marka hadalkaasi waa hadal